kulanti wanaagsan daawadayaal kula soo dhawaada janalkeena ka ah wararka ku soo gudbina xogihii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona kadib heshiiskii buuxay la gaaray arrimaha doorashooyinka jadwalkii la soo saaray haddaba waxaa la isku hayaa qodob kamid ah qodobada ugu muhiimsan ee ah arrimaha dhaqaalaha cidda maamulaysa oo la isku qabanayo isla markaana hadda ayay soo ifbixaysaa xog ku saabsan iyo macluumaad fara badan ayaa daawan doontaan kulan aad u weyn xalay waxaa wada qaatay dhinacyada kala duwanaa ee heshiiskii wada gaaray dowladda federaalka maamul goboleedka Wasaar Rooble iyo midowga musharaxiinta qaar ka mid ah Shariif Xasan Sheekh Maxamuud Cabdiraxmaan Cashuur ayaa ka maqnaa haddaba siyaasiga muxuu suluugsan yahay nidaamka jadwalka ka soo horjeeda macluumaad iyo xog arintaas ku saabsan ayaa daawan doontaan qodobadana kale waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay TPLF oo markaasi ku duuleysa Eritrea iyo Amxaarada kadib markii ay qabsadeen magaalada caasimadda ee Maqalla beesha mursadana waxa ay baaq u dirtay maamulka Puntland sababtu maxay tahay baaqaas maxaa keenay haddaba xogo iyo arrimaha markaasi ay ku baaqtamayaan soo gudbi doonaa qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa warar kale arrimaha caalamka diblomaasiyadda ku saabsan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka noo saar gambarada furo una share gareeya saaxiibadii meelkasta joogaan idinkoo markaas commentiga like-na inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin kadib markii shalay la soo gabagabeeyay shirkii u dhaxeeyay Wasaar Maxamed Xuseen Rooble madaxda maamul goboleedka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee looga hadlayay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya shirkan ayaana la isku fahmi waayay dhanka dhaqaalaha ku baxaya doorashada Soomaaliya iyo sida loo maamulayo waxaana shirka uu markaas u dhamaaday iyadoo aan qodobkaasi heshiis buuxa laga gaarin Rooble ayaana ku dooday in xafiiska laga maamulo dhaqaalaha ku baxaya doorashada halka madaxda maamul goboleedka ay dalbanayaan in la qeybiyo oo maamulka sabab la siiyo qiimo gaar ah sida uu doonayo maamulada sida ay doonayaan qaar ka mid ah maamulka dalka qodobkan ayaana lagu heshiin waayay waxaana la isla gartay in si hoose oo markaasi farsamaysan loo xaliyo dhaqaalaha doorashada waxaana bixinaysa beesha caalamka waxaana suuragal ah in go'aankan kama dambaysa ay cidda maamulaysa ay markaas iyagu markaa ka yimaadaan shirkii golaha wadashiga ayaa si rasmi ah u soo saaray jadwalka doorashada ee cusub maadaama jadwalkii hore uu fashilmay iyadoo la qorsheeyay in doorashada madaxweynaha ay Soomaaliya la qabto 10 Oktoobar 2021 dhinaca Rooble oo ka duulay heshiiska 20 September ayaa magacaabay guddiga dib u heshiisiinta gobolka Gedo aysan ku jirin Jubbaland guddiga ayaana la faray inay dejiyaan arrimaha dib u heshiisiinta gobolka Gedo golaha ayaa sidoo kale isagoo tixgelinaya codsi ka yimid haweenka Soomaaliyeed wuxuu 50% ka dhimay haweenka Soomaaliyeed khidmadaha laga qaaday haweenka u sharaxan baarlamaanka Soomaaliya intaana ka bixin arrimaha ku aadan shirarka arrimaha doorashooyinka xalay kulan ballaaran ayay yeesheen dhinacyadii heshiiska gaaray arrimaha doorashooyinka Wasaar Maxamed Xuseen Rooble madaxda maamul goboleedka iyo qaar kale oo kamid ah midowga musharaxiinta mucaaradka ah oo markaasi xubnihii ugu muhiimsanaan laga waayay golaha midowga musharaxiinta kaas oo ah hogaamiyaha mucaaradka ee wasiir Cabdiraxmaan Cashuur Samee haddaba kulankan ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid casharaf ah waxaana soo qaban qaabiyay markaas madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor kulankan oo ka dhacay guriga uu madaxweynaha Galmudug ka degan yahay magaalada Muqdisho ayaana ku soo aadaya iyadoo galabta ayuuna shalay la soo gabagabeeyay isla markaana jadwal doorasho laga soo saaray shirkii Rooble madaxda maamul goboleedka kulanka ay xalay isku yimaadeen Rooble madaxda maamul goboleedka iyo xubno ka tirsan midowga musharaxiinta waxaa gogishiisa u dhigay oo madaxda casharaf u sameeyay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor golaha midowga musharaxiinta oo muddooyinkii dambe u muuqday mid u kala jabay siyaasadda dalka ayaa markaas xubnaha ka socday ee kulankaas ka qayb galay waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre Cabdiqaadir Cusuble Mustafa Dhuxulo iyo Cabdinaasir Cabdulle xubnaha ugu cadcad ee ka maqnaa kulankaas waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed siyaasiga Cabdiraxmaan Cashuur kuwaas oo aan la cadeen sababta ka baajisay kulankii ay xalay isku yimaadeen xubnaha kala socday midowga mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedka xukuumadda Cabdiraxmaan Cashuur ayaa hore u muujiyay suluugiisa ku aadan shaandheyntii ugu dambeysay ee lagu sameeyay guddida doorashooyinka balse ilaa hadda ma jirto siyaasi ku hirmid ama suluugay heshiiskaas ay gaareen madaxda maamul goboleedka iyo markaas Wasaar Maxamed Xuseen Rooble oo lagu cadeeyay shaxda doorashada dalka qaybihii hore ee janalkeena ka ah wararka ayaa daawanaysaan saaxiibeen lagu dhiirigeliya inaad subscribe inoo saataan gambaralkan afurutaan una share gareysaan saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo markaas commentiga like inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin markaana odayaal dhaqameed ka tirsan beesha mursada oo shir daad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray baaq culus oo la xiriira dhalinyaro markaas ay xirtay Puntland oo muddo u xirnaa isla markaana aan la soo taagin wax maxkamad ah odayaasha ayaa sheegay in dhalinyartaas oo dhan 6 qof ay u xiran yihiin maamulka galkacyo ee Puntland kuwaas oo ay sheegeen inay u xiran yihiin muddo ka badan 6 bilood dhalinyarta waxa ay u taagan yihiin bali waxay u tageen Puntland si ay ugu shaqeyn lahaayeen ayagoo markaas qaarkoodna ka ahaa wadayaal mooto bajaaj
iyo hiliblayaal sida ay sheegeen odayaasha iyo markaasi waalidiinta la hadlay warbaahinta. Odayaasha iyo waalidiinta qabtay shirka jaraa'id ayaa ka dalbaday maamulka Puntland in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo daayo dhalinyartaas ama la cadeeyo waxa loo haysto muddo ka badan 6 bilood ay ku xireen xabsida ku yaala magaalada Gaalkacyo dhinaca maamulka Puntland. Shirka jaraa'id ayaa imaanaya xilli maamulka Puntland oo shalay dil toogasho ku furiyay rag ay ku sheegeen inay ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo Daesh isla markaana lagu eedeeyay in ay dilal qorsheysan ka maleegayeen deegaano ka tirsan maamulka Puntland. dhinaca kale taliska ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay howlgal ay ciidamada ammaanka saacadihii la soo dhaafay ka sameeyeen gudaha magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu sugayay amniga guud ee dalka. howlgalkan oo ahaa kuwa qorsheysan ayaa waxaa lagu soo qabtay kooxo burcad ah oo dhinac ka geysanaya qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir sida uu shaaciyay gaashaan Cabdifataax Aadan Xasan oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Cabdifataax ayaa shaaca ka qaaday in raggan la soo qabtay ay gaarayeen ilaa 14 ruux kuwaas oo xilliga gacanta lagu soo dhigayeen ay ku howlanayeen furashada dadka rayidka ah waxyaabaha muhiimka ah ay isticmaalaan isla markaana ay gacanta ku haysteen. sidoo kale wuxuu intaas ku daray inay ku hubeysnaayeen qoryaha fudud sida AK-47 bastoolada iyo mindiyo ay ku dhibaateeyeen dadka shacabka ee Muqdisho ku nool. dhinaca kale wuxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan Muqdisho inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si looga hortago falalka halidii ku ah amniga ee ka dhacaya qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. bulshada gobolka Banaadir waxa aan ka codsanaynaa buu yiri in ay nagu gacansiyaan kuwaxa kale ee aan ku rajoogno ayuu hadalkiisa si raaciyay markaas gaashaanlaha. maalmihii ugu dambeeyay waxaa shacabka ku nool magaalada Muqdisho ay ka cabanayeen dhaca baahsan oo markaas habeen iyo maalin ah oo loo geysanayo waxaana tani ay jawaab cad u tahay qaadaarta ka soo yeeraysa bulshada oo qaati ka taagan burcad hubeysan oo dhaca markaas u geysanaya. wararka arrimaha gobolka geeskan waxa ugu waaweyn daawadayaal haddii aan eegno qaybihii dhaxan waa soo gaarnay TPLF ayaa weli waxay dhaqdhaqaaq culus ka wadaa gobolka Tigray. jabhadda ee ka dagaalantay waqooyiga Itoobiya ee TPLF ayaa sheegtay inay ku wajahayn gobolka Amxaarada iyo dalka Eritrea si ay u baaxsaan waxa ay ku tilmaameen cadowgooda. afyeenka TPLF Getu Ready ayaa sheegay in ujeedka ay ugu golleeyihiin go'aankaas uu yahay inay meesha ka saaraan awoodda kooxihii dagaalka ka wada Tigray 8 bilood ee la soo dhaafay. wuxuuna sheegay afyeenka in la fariyo arrimaha gargaarka balse weli ay ku rajo yihiin in cadowga ay ka saaraan waa sida uu ku dooday. TPLF waxay sheegtay inay baxsanayaan ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ee ka baxsan magaalada caasimadda gobolka Tigray ee Maqalla waxaana lagu soo waramayaa in ciidamada Eritrea ee taageeray militariga Itoobiya ee ku sugan magaalada Shire ay iyaguna iskaga baxeen halkaas. TPLF ayaa qabsatay magaalada Maqalla waxaana wadooyinka ka socda dabaaldegyo lagu soo dhaweynayo ciidamada taas oo saraakiisha dowladda federaalka ku qasabtay in halkaas iskaga carraan. dadka deegaanka ayaa lagu soo waramayaa inay isugu soo baxeen wadooyinka iyagoo markaas ridaya baaruud waxayna sitaan calanka ismaamulkii cagta la mariyay ee Tigray kaas oo hadda la soo kala kiciyay. sidoo kalena waxaa jira warar sheegay in dagaalka u dhaxeeya ciidamada federaalka iyo kuwa TPLF uu ka socdo banaanka hore ee caasimadda Maqalla. dowladda Itoobiya ayaa gobolka Tigray ugu dhawaaqday xabad joojin 8 bilood ah kadib markii Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu halkaasi ciidamo u diray si uu hoggaanka golahaasi ama gobolkaas meesha ugu saaro. dhawaaqida arrintaas ayaa waxaa timid xilli dad badan oo gobjoogaal ay sheegeen in ciidanka ay ka soo jeeda dowladda ay joogaan wadooyinka dowladda isla markaana ay dhoobihiin caasimadda gobolka Tigray ee Maqalla. dhammaan dhinacyada waxaa lagu eedeeyay inay geysteen dilal badan iyo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. in ka badan 5 milyan oo qof ayaa waxaa si degdeg ah ay ugu baahan yihiin raashin gargaar ah waxaana sidaas sheegtay qaramada midoobay halka 350,000 oo qofna ay macluul ay ku wajahayaan gobolka Tigray gaar ahaan marka halka dagaalada xoogan ay ka dhaceen. waayahay saaxiibayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaa wararkii waaweynaa Soomaaliya caalamka aad kala socoteen channelkeena ka wararka fadlan nagu dhiirigelina subscribe kuna soo saartaan gambarka furtaan oo share gareysaan saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo comment like inoo reebaya aad baad u mahadsantiin ka qayb qaadida booliska dalka aan ku sameynayno nabadgelyo.